السلام عليكم أخيارتا كوسو دوادا مر لبعض. هذا waxaan idin tusinayaa sidoo marketku u isticmaalo fair value gap so waxa weeyaan waa between candle kan hoostiisa iyo candle kan dushiisa hadaad aragtid wax kalo dhaxmaraya ma jirto only this one weeyaan upside ka wax kale ma aragtid meel wax kalo meeshan taabanaya ma aragtid fair value gap kan so marketku badanka wuxuu sameeyaa markuu xaggan ka tago kale dib uu adana ugu soo noqdaa uu retest gareeyaa oo badanka ma wada xidho uu soo yara retest gareeyaa kadibna uu continue gareeyaa hoosta so adaad horaantii intan aqoon aad u leedahay markasta waxaad oran kartaa price-kii uu iga tagay laakiin fair value gap-kan wuu meedhan yahay markuu ku soo noqdo xaggan aan ku seel gareynayaa oo waan ka qayb qaadanayaa maxay ahayd marketka hadda so sidaas oo kale aad oran kartaa hadda hadaad aragtid marketkani wuxuu sameeyey buy side-kii buu xaggan ka qaatay marketka shift in market structure uu sameeyey fair value gap hadaad arkaysiin yarna xaggan uu nooga tagay hadaad target gareynano more sell side-ko kale oo trade-kani uu ku dhaafay waxaad oran kartaa the first fair value gap-kii la sameeyey price-ku dib ugu soo noqonayaa sidii uu dheeli tiro marketka oo buy iyo sell kuba ay ka qayb qaataan marka waxaad oran kartaa anigu waan sugayaa markuu marketku dib u soo noqonayo so hadoo kale hadda saa ugu jiri lahayd marketka uu ku tikaran lahaa oo fair value gap kan between these two candles ayaa trade-ka ka gashay oo aad target gareyn kartaaba all the way to this downside